Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaad channelka Daawanaya su'aalo ka tasho channelka ku cusubta subscribe dheh. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay dadkii ka dambeeyay dilkii wariye Jamal Khashoggi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadal u muuqday weerarkii ugu baahnaa abid ku qaaday madaxda dowladdaasi Sacuudi Carabiya. Dowladda Sacuudi Carabiya isla markaana oo ka doonayay inay maslaxada caalamkana isla markaana wax u cuntuma dunida ka dhigaysato dadka Turkiga iyo shacbi ku qancaan ay keento ayaa hadda u muuqda inay ka quusatay Turkiga Sacuudi in la yimaado haatan madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu si rasmi ah ugu eedeeyay madaxda dalka Sacuudi Carabiya mas'uuliyadii iyo ciddii amartay dilkii madaxda sare ahaayeen ee dowladda Sacuudi inkastoo uu magac dhabin MBS ama odaygii dhalay boqor Salmaan ayuu haddana Recep Tayyip Erdogan haba yaraatee wax geed ugu soo gamban wuxuu ugu yeeray madaxda ugu sareysa dilkii wariye Jamal Khashoggi. Sacuudi Carabiya weli waxay haysataa su'aalo badan oo ku saabsan dilkii loo geystay wariye Jamal Khashoggi wuxuu yiri ilaa hadda wax dad waaweyn iyo dowlado ku qancaan aysan soo saarin ayuu yiri isagoo ka qaybgalayay xusid iyo meel qaabkii loo dilay iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Jamal Khashoggi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa yiri waxaan hadda weli la fajacsanahay dalka Turkiga iyo dunida caalamka oo dhan iyo anaguba aynu la yaabanahay sida ay caqligeenu ugu ciyaarayaan boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaanu dhahnay aaway meydkii wariye Jamal Khashoggi iyo haraadigii Jamal Khashoggi weli dadkii idinkala shaqeeyay meydkiisa qaaday gudaha dalkani ku sugnaa ee khiyaanoolayaasha ah haddii xataa aad gooseen hilibkii iyo haraadigii dhiibteen aaway waa maxay sababta idinku kaliftay inaad dal qaran ah oo madax bannaan oo gaashaanbuurta NATO ka tirsan aad qof noocaas ah oo muwaadin ah aad wax u galabsataan oo aad igu dishaan wuxuu yiri nasiib darro Sacuudi Carabiya way diiday inay ka jawaabto si kooban u yiri Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu ugu yeeray dadkii ninkaasi dilay inay ahaayeen dabadhilifyo wuxuu sheegay in dabadhilifyadaasi amar ka haysteen dad kale oo culus wuxuuna kale oo sheegay inay u muuqato inay luqunta lagu qorinayo balse caalamka jawaab u fadhiyo.